السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو فاميلي يوتيوب. فضلا هداد كو عصوبتا سبسكرايب سارو نوغو سو بير. كامبرال كنفرو سي كسو غانا وحيابيان سو غالينو. maanta waxaan ka hadlaynaa kelmad ku saabsan waqtiga ee daawasho wacan. Hammi ama han sare oo yeelatay waxa uu sabab u noqday inaad hadaf yeelato. hadafkaasina wuxuu sabab u noqday inaad waqtigaaga maarayso. waqtigaaga oo maaraysay ayaa ah sababta koobaad ee guushaada. waqtigu waa waxa ugu qaalisan ee aynu haysanno, waxaana la odhan karaa waa nolosheenii. waqti kasta oo tagaa qayb adiga ka mid ah ayuu la tegayaa. waqtigu degdeg ayuu ku dhaafaa mana soo laabto. Soomaalida ayaa waxay ku mahmahdaa waqti iyo mawjad midna kuma sugaan. murti kale oo Soomaaliyeed ayaa waxay tidhaahdaa saddex ma soo laabtaan. odhaah aad tidhi ma soo laabato, falaar aad gantayna ma soo laabato, waqtiguna ma soo laabto. qiimaha waqtigu waa sida birta xadiidka oo kale. mar kasta oo birta aad geliso juhd iyo dadaal si aad uga dhigto mid waxtar leh, waa mar kasta oo qiimaheedu kordho. tusaale ahaan, biraha qaar waxaa laga dhigaa midiyo, qaar saacado, qaarna waxyaabo kale ay dumarku xidhaan. birtu wuu kordhayaa mar kastoo qaabka birta iyo waxtarkeeda la kordhiyaba. waqtiguna waa sidaas oo kale. qiimihiisu wuxuu ku jiraa habka aad juhdi u gelisid, nidaamkiisana u maamushid. maaraynta waqtiguna waxa ay ku xidhan tahay himiladaada iyo hiraalka aad nolosha ka leedahay. haddii aanad hadaf dhow iyo mid fog lahayn, wax macno leh kuma samaynayso inaad maamusho ama nidaamiso waqtigaaga. marka noloshaadu nidaamsan tahay, yoolna aad leedahay, isla markaana sidii aad u xaqiijin lahayd aad ku guda jirto, waqtigaagu wuu wanaagsanaanayaa. laakiin haddii aanad nolosha wax hadaf ah ka lahayn, waxaaguna ay iska yihiinun caadi iyo caado, himiladaaduna aanay dhaafsanayn cunno, hurdo iyo shaqo, way adag tahay inaad si fiican uga faa'iidaysato waqtigaaga una maarayso. si haddaba waqtigaaga aad uga faa'iidaysato, marka hore waa inaad leedahay yool fog iyo mid dhow intaba. guusha iyo farxadda aad raadinaysaa waxay ku jiraan sidaad waqtigaaga u maarayso. nolosha ayaa waxay bartay in waqtigu kugu soo maro saddex xaaladood miduun: mar uu yar yahay, mar uu badan yahay, iyo mar uu barakaysan yahay. marka uu waqtigaagu yar yahay, waxaad isku daydaa inaad waqtigaaga ka faa'iidaysato. noloshana hadaf ayaad ka leedahay oo waad jeceshahay inaad xaqiijiso. laakiin habka aad waqtiga u maamushay iyo hanaanka aad himilada u dejisay ayay wax ka qaldan yihiin. marka uu waqtigu kugu dheer yahay, wax hadaf oo aad rabtaa inaad gaadho ma jiro. sidaa daraaddeed waxaad isku daydaa inaad waqtigu dhaqso kuu dhaafo oo aad lumiso. marka uu waqtigaagu barakaysan yahay, waxbaad higsanaysaa, jidkeedana waad haysaa, kaas oo ah himilo sugan iyo hami sare oo aad yagleeshay, si wanaagsanna aad u maaraysay waqtigii ugana faa'iidaysatay. ugu dambayntii, waqtigii baa hadlaayo oo leh: ilma bini'aadamow, anigu waxaan ahay maalintii cusbayd ee markhaatiga ka ahayd shaqadaada ee iga faa'iidayso, maxaa yeelay ma soo laaban doono ilaa maalinta qiyaame. sidaa daraaddeed, habeenka iyo maalintu aday kuu shaqaynayaan ee ka shaqayso, badhka ayay qaadayaan ee adna ka qaado oo ka faa'iidayso.